مسؤولينta wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland iyo gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland ayaa maanta abaalmarin guddoonsiiyay shaqaalihii ugu wanaagsanaa wasaaradda sanadii 2019 munaasabadani lagu guddoonsiinayay shahaadooyinka ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta agaasimaha guud gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda agaasimaha waaxyada wasaaradda iyo shaqaalooyinaha wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland ugu horreyn munaasabadani waxaa ka hadlay agaasimaha waaxda shaqaalaha ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland مدن عباس حاج حدامي وحنا هذلديسي كمid ahaa sanad walba dhamaadkiisa waxaan abaal marnaa shaqaalaweynaha wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka sanad walba waxaan ku qiimeynaa shaqaalaha waxay sanadkii hore ku qiimeynay waa attendance sanadkan way ka gidisan tahay waxaan ku qiimeynaynaa performance iyo attendance labada wada socda waxa sanadkan noo dheer hadana in shaqaalaweynaha wasaaradda qorsheynta ilaa gobolada ku inoo joogay in naga qayb galaan xafladan maanta agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta mudane Mubarak Cabdullaahi Ibraahim Daljir wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta mudane Cabdiqaadir Umar Jaamac gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda mudane Farxaan Aadan Haybe ayaa waxay ka warrameen muhiimadda ay leedahay in la dhiirigeliyo shaqaalaha dawladda isla markaasina lagu abaalmariyo shaqada ay qabteen marka maanta hadii la ka dhigo waxaan insha Allah abaalmarin doonaa qofkii ugu wanaagsanaa agaasimayaasha waaxyaha waxaan kaloo abaalmarin doonaa qofkii ugu wanaagsanaa isu duwayaasha gobolada waxaan sidoo kale insha Allah abaal marin doonaa waax kasta qofkii muxuu ahaa ugu wanaagsanaa waxa sidoo kale muxuu ahaa sanadkan ku jiro hore ugu jiri jirin shaqaalaha gobolada marka gobol walba qofkii shaqaalaha ugu wanaagsanaa aynu sidoo kale hadii ilaah ka dhigan muxuu ahaa abaal marin doonaa abaal marinta aynu abaal marinayna shaqaalaha waxaan ku dadaalnay inuu dhaco muxuu ahaa hab cadaalad marka lababa waa la qiimeeyay waxa la qiimeeyay muxuu ahaa horta performance appraisal process-ka caadiga ah ayaa muxuu ahaa la maray gobolada iyo waaxyaha kala duwan waxa loo qaybiyay muxuu ahaa foomamkii lagu sameeyay appraisalka shaqaalaha waxa soo qiimeeyay agaasimayaashooda shaqaalaha gobolada waxa soo qiimeeyay suduwayaasha agaasimayaasha waxa qiimeeyay muxuu ahaa maamulka sare sidoo kalena muxuu ahaa qiimeyn ka soo baxda waxaan ku sameeynay muxuu ahaa cross check iyo hubin inaan hubinayna sida cadaalad ahayd inay u dhacday way dhici kartaa inay qaladaad yimaadaan oo bini aadam baynu nahay laakiin waxaanu ku dadaalnay sidii ugu wanaagsaneed ee u dhici kareysay inay muxuu ahaa u dhacdo waxaana maxay ahaday runtii la qiimeynay performance-ka iyadoo la eegay qofka weeg balaankii uu yaalay iyo muxuu ahaa qorshihii mataqaanaa uu ku shaqeynayay inta uu ku guuleystay iyo shaqadii muxuu ahaa waaxdiisa taallay ama gobolkiisa taallay sidii uu qofku muxuu ahaa u gutay ee uga shaqeeyay waxa sidoo kale la eegayo muxuu ahaa qiimeynta qayb ka ahaa attendance-ka laftiisa way qofku hadii aanu xafiiska soo baatan gareyn oo xafiiska joogin way adagtay in performance laga sugaa marka attendance-ku waa qayb 30% baa asas ayuu ahaa muxuu ahaa attendance-ku 70% ka kalena wuxuu ahaa muxuu ahaa performance in lagu eego marka waxaan rajaynaynaa insha Allah in qiimeynta maanta aynu sameynayno iyo abaalmarinta aynu sameynayna inay noqoto mid wasaaradda shaqadeeda dhiirigelisa dardargelisa intiina aan muxuu ahaa guuleysanina waxaan idin rajaynaynaa insha Allah in sanadka dambe aad ku dadaashaan sidii aad u guuleysan lahayd ee lagu xusi lahaa kulleyn marka meel wada joogo ama shaqaale la yahay shaqo la isku diro waxa weeyaan qaarna si fiican buu qabanaya midna waxa laga yaabaa in shaqada sidii lagu talagalay aanu ka soo bixin laakiin isaga laftiisu chance-ka muulmine waxa weeye uu ku dayan karaa uu dadaali karaa shaqadii loo igmaday uu ka soo bixi karaa marka annaga inkastoo aanu wasaaradda weli ku cusubnahay waxa sharaf weyn noo ah inaanu sanadkan cusub ee 2020 aanu ka qayb galno cidii mataqaan ku guuleysatay qaybaha kala duwan ee uu agaasimaha guud soo sheegay ee agaasimayaasha shaqaalaweynaha gobolada intii markaa ku guuleysatay inaan goobjoog u ahaanana anaga farxad gaar ah noo sii tahay ee sanadkii tagay shaqada soo qabtay waxaan aad iyo aad magaranaysaa inuu ku dhiirigelinayaa in shaqada iyo saacadaha la shaqeeyo aynu qabanno xilliga shaqada laga baxayo iyo xilliga la soo gelayana ay noqoto timetable-ka inoo yaala waa maalin qiimo leh runtii waan uga mahad celinayaa mas'uuliyiinta wasaaradda inay gartaan oo ay go'aansadaan iyagu inay shaqaalahooda horumar maxaan ku dhahdaa abaal mariyaan ciddii mutaysatay sanadka waayo waxa jirta
dee horena waa loo sheegay آيات القرآن كانوا يقول شرط آيات كلام سوق هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وناقم يانه وناقم لقوا بالمريو تيوم بين وضنا وحكستو وناقصن قفك قبتين لا بالمريا واجب ويه وحبر برسعوتا قفك كلنا إن لا إيجو الله سببت اللي سويديو هذا يتين حاجة يوهو قابطي وزارة هانية هيدا هامة وايو إنستيوشنز كدولده هيئات كدولده ويسوتو سنين ويدوم يتبيع لسه marka haday xagga wasaaradda ku gaabatay u baahan tahay inuu capacity-giisa iyo capabilities-kiisa kor u qaadno oo dhisno waajibna saaran naga weeyo ka tashanayna oo waxa tababarada sanad kasta loo bixiyo haday tahay dib u dhac iyo dayacaad xaggiisa ka timina waxa khasaba inta laabadii ku haboonay sida kan loo abaalmariyay laga qaado gabadhii munaasabadan waxaan soo xiray wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland mudane Xasan Maxamed Cali Gaafadhi waxaana shahaadooyin la guddoonsiiyay shaqaalihii ugu wanaagsanaa sanadkii 2019 taadi aad baan maanta ugu faraxsanahay inaan joogo goob shaqaale lagu qiimeynayo oo lagu abaalmarinayo run ahaantii waa waxa kaliya aynu ku gaari karno horumar ku gaari karno marka aynu eegno shaqooyinkan hayno dadku inuu isdhexgal gasho isku dhex jiro ma laakiin waynu kala horeeyaa kala horbaxa oo maxaan ku raahdaa in la istaba joogayo la kala horeeyo waxa ay inoo tahay maanta abaalmarintan la bixinaya ma aha kal dambena in ay kordhayso abaalmarintu intan baa lagu tartamayaa ka maanta qaatay mid ka ritaa la doonaya laakiin meel la oranayo hal soo kordhiyo shaqaalaha la soo kordhiyo aad bay u yaraanaysaa qof waliba wuxuu ku talagelayaa inuu mid maanta qaatay inuu barito isagu ka rito kuwa maanta aynu abaal marinayna waxay heleen shahaadadoodii wax u raacsan bay heleen oo labaad oo ah in ay muujiyeen in maxaan ku raahday shaqo wanaag ka muujiyeen meesha ay joogeen haddii bari ku darsadaana waa mid labaad haddii maxaan ku raahday qolo cusub ay maxaan ku raahday ku soo biirtana iyaduna waxa weeyaan qofkaasna wuxuu ku darsaday shahaadadiisii iyo aqoontiisii ayuu ka inagu qolada madaxda waxa nala gudboon inaanu daacad ka ahaano bini'aadanku horena waan idinku sheegay anagu waanu nimi bartana waa tagayna halkan cidda leh waa idinka anana intaa inaanan qofna u guban ilaah baa naga sarreeyo taa annaga ay waajibna saaranta qofka markaa maanta qaadan waaya yuu shakiin oo ay soran oo nin mala qofkan kale waa laga riixada kaga haboona weligaan qof wuxuu sito lama eege waxaad adigu haysato baa la eega